odayaasha oosha uu ka soo jeeday ee makaahil oo shiray maanta kana hadlay magaalada Jigjiga ayaa sheegay inaan diriir kale iyo arrimo qabiil loo baahnayn markana ay diyaar u yihiin ugana soo anbabixin wardheer sidii af qabiil loogala hadli lahaa dhanka Hargeysa waxa ay sheegeen inay muddo halka ku sugnaan doonaan iyagoo doonaya odayo kale oo geeska Soomaaliland oo ay kala hadlaan si dhaqanna ay arinta u farsameeyaan una sii daayaan xildhibaan Jamaal Cismaan oo maanta dib u helay xuriyadiisii maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogo oo sheegay 22 bisha sanadka 2026 sidoo hore uu ballan qaaday markuu dhamaado muddo xileedkiisu inuu banayn doono wambarka maanta mar kale Suudaan Mawlid Cali Sabayste oo ka hadlay arrimaha dhaxyaala isaga iyo Soomaali isagoo kaliya maaha isaga iyo salaadiin kulamaan waxay kala kulmeen xilli ay ugu tageen xafiiskiisa qodobadan ayaynu kaga hadli doonaa waa macquul inay qaar kale raacaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hore aad noola joogdina waad mahadsan tahay aan ku bilaabay maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogo oo maanta la hadlay mid ka mid ah saxaafadda Hargeysa ayaa sheegay in ballanqaadkiisii ahaa inuu xilka banayn doono marka muddo xileedkiisa la gaaro uu sidiisii yahay waxa uu maayirku sheegay aragtiyaan isagu inaanu markan aaminsanayn wax la yiraahdo muddo kordhin iyo in xilka loo kordhiyo sideeda banaanna uu ka soo horjeedo si uu taa uga dhabeeyana isagu ka bilaabi doono naftiisa maayir Cabdikariin Axmed Moogo ayaa 28 Abriil sanadkii 2022 waxa uu si cad u sheegay isagoo muddo kooban jooga xilka inuu banayn doono marka muddo xileedkiisa 5 sano dhamaado xubinimada iyo waliba xilka maayirnimo ee magaalada Hargeysa hadii xitaa la go'aamiyo in loo kordhiyo golaha uu odayga iyo duqa u yahay amase uu ku hogaamiyo caasimadda maayirka ayaa mar kale sheegay markan inuu taa ka dhabaynayo maayirka oo ka hadlayay xarig loo geystay dhawaan xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa arrimo la xiriira isku imaatinkii garoonka Xawaadle waa Jamaal Cismaan ayaa sheegay in hadda xuriyadiisii uu dib u helay xildhibaankaasi oo uu banaanka joogo sida la xaqiijiyay iyo sida hadalka maayirku yahayba waxa ay yeeshay qoraahdii maayirka xildhibaan Jamaal Cismaan ayaa xuriyadiisa helay isla maanta gelinkii dambe taasoo muujinaysay markan dhaqdhaqaaq ay sameeyeen golaha deegaanka Hargeysa oo ahaa isku soo dhaweynayay xildhibaanka oo boolisku sheegeen inay ku hayeen falalid ku ammaanka isagoo gacmaha kula jira iyo geeska kale xildhibaanka oo isaguna doodadag arinta ka qabay in la iswaafajiyo ugu dambeynna xildhibaan Jamaal Cismaan sidaas ayuu ku helay xuriyadiisii halkaana waxaynu kaga baxaynaa maayirka oo ka hadlay go'aankiisa iyo xildhibaan Jamaal Cismaan oo dib u helay xuriyadiisii markana salaadiinta iyo xuqaasha dhaqan ee ka soo jeeda deegaanka uu ka dhashay sarkaalkii dhawaan Soomaaliland gacanta ku dhigtay kana soo qabatay gudaheeda isagoo ku jira sarkaal Xasan Maxamed Aadan Xasan Ciraaqi loona yaqaanay Xasan Garaad kaas oo ahaa taliyihii unuga danab markii dambana ahaa taliyihii guutada 18aad ee ciidanka Gorgor kana soo dagaalamay deegaano kala duwan sida Bariire Baraawe iyo ugu dambeyn deegaanka Raas Gamboni oo ay isku farasaareen daraawiishta Jubbaland waxa uu sarkaalkani u xulan yahay laamaha kala duwan ee ammaanka Soomaaliland balse odayaasha oosha uu ka soo jeeday ee makaahil oo shiray maanta kana hadlay magaalada Jigjiga ayaa sheegay inaan diriir kale iyo arrimo qabiil loo baahnayn markana ay diyaar u yihiin ugana soo anbabixin wardheer sidii af qabiil loogala hadli lahaa dhanka Hargeysa waxa ay sheegeen inay muddo halka ku sugnaan doonaan iyagoo doonaya odayo kale oo geeska Soomaaliland oo ay kala hadlaan si dhaqanna ay arinta u farsameeyaan una sii daayaan waxa ay sheegeen dhawidba lagu hayay xadhigga sarkaalkan iyo waxa ay Soomaaliland ka yeeli doonto baaris ayaa socota marka loo eego dhanka ammaanka oo waxa jiray xiisado kala duwan oo galbeedka Soomaaliland ay damacoodu ahayd xagga Soomaaliya in markan laga abuuro falqalalo taas oo ahayn mid qarsan sida uu qiray wasiirka gaashaandhigii hore uu ahaan jiray arrimaha dibadda iyo wiilka ay ka buuxdo cuqdada Soomaaliland fiqi waxa uu sheegay in loo baahan yahay markan dadka reer Awdal inay qaataan qoriga oo iska dhigaan qalinka istiraatiijiyad weyn ay u diyaarin doonaan geeskooda arrimahaasina waxa ay noqdeen kuwa si weyn Soomaaliland baraarugeeda kor ugu qaaday waxaana la xoojiyay markan in si weyn dhaqdhaqaaqa loogu hayo isha cid kasta oo doonaysa xayndaabka Soomaaliland iyo gudaheeda inay salka soo taabato lama oga sida ay yeeli doonaan iyo sida uu ku dambeyn doono balse odayaasha makaahil oo kaashanaya oolaha kale ay yihiin isir wadaag ee ogaadeen iyo daaroodba markan waxay inay reer ahaan u sugayaan in loogu soo fadhiisto ay doonayaan inay garnaqsadaan sarkaalkan waxa lagu haystana loo cadeeyo waynu eegi doonaa sida waqtigiiyo waayo uu ka dhigay
markana Suldaan Mawlid Cali Sabayste oo ka hadlayay arrimo qarsoona oo daawsaarna taasoo dhex martay siyaasiga Cabdicasiis Maxamed Samaali gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xusbiga Kulmiye isaga iyo salaadiin kale oo hogaaminayo oo ku sheegay tiraba 8 inay ahaayeen maalin ay ku booqdeen xafiiskiisa wixii ay kala kulmeen iyo hadallo badan oo markan muujiyay in siyaasi iyo hadallo badan oo markan muujiyay in go'aankooda ay weeciyaan dhanka indhaha Cabdicasiis Samaale talo muxuu ku yiri odayaasha dhaqan ee uu Sabayste sheegay inuu qaybta ka ahaa Sabayste oo ka hadlay arrimaha ayaa sheegay Samaale inuu soo bandhigeen in loo baahan yahay inuu reerka ku hogaamiyo meel dhanka kalena siyaasadda imika isagu jaangooyo balse waxa uu Cabdicasiis Samaale sheegay sida Sabayste sheegay inaanay markan ahayn macquul odayaashu waxay u leeyimaadeen dhanka kalena sare joogay inuu kula hadlay oo uu diiday inuu xilliga fadhiisiyo goob tii uu ka soo kacay oo uu sheegay inaanay ahayn madal uu kula hadli karayo balse uu la ballami doono arrimahaas oo dhani waxay ahayd sida uu ka dhawaajiyay Suldaan Mawlid Cali Sabayste waxa kala weeciyay Samaale iyo iyaga oo markan u muuqday kuwa si uun isu haya waxa uu sheegay dood kasta iyo dareen kasta oo iyagu qabeen oo doonistoodu ahayd Samaale inuu hogaamiyo siyaasad ahaan oo shay ka soo jeedaan inay weecisay hadalka Samaale ku yeeray kaas oo ahaa inaanu isagu ahayn siyaasiyaga ay metelaan una sitaan ciidamada markii ay weydiiyay siyaasigoodii oo ku metelaya siyaasadda waana kan Suldaan Mawlid Cali Sabayste oo arrimaha daahsaarna muddada badan iyo halka ay iska seegeen hogaanka Kulmiye ee deegaankooda ka soo jeeda iyo iyagu daah qaadaya taagweyni ayaanu warayna toos ugu tagno gudoomiye ku-xigeenka koobaad ninkaas odayaho nimanka ugu weyn meeshan wax maanta maskab hayay isaga jireen isaga horta aanu tagno 8 suldaan oo habara wala oo Saacad iyo Ciise ayaanu ugu tagnay Mansuur qolka dambu ku leeyahay hoteelka markaan halkaas oo kala ka soo baxnay uu badhaantayada arkay maanta uu jooga snow nooli 8 suldaan oo nooli iyo suldaan kale waliba isaga markaa la joogay 9 suldaan ayaan meesha soo nimid anigu 8 baan ahay Cabdicasiis uu ka soo baxay doomiye ku-xigeenka uu ka soo baxay xafiiskiisii waxaan ku niri gudoomiye xafiiskaynu u celi aan fadhi ku wada hadal leh idin ma fariisinay buu sare joog buu nagu la hadlay waxaan ku niri fadhi aan ku wada hadal leh ballan baanu ka doonaynaa ina fariisi annaga dawayna kaygi salaadiintiisi baan weligeed xumaan nama dhexmarin Cabdicasiis uu diiday waxaan su'aalan ku yiri gudoomiye miyaanad gudoomiyaha iyaga ahayn miyaa waxaan rimaad siyaasiga iyaga ahayn miyaanad ina iyaga ahayn ballan baanu ka doonaynaa adiga iyo 8 nin ee kale 9 kiinaba waan idin doonaynaa noo ballami wuxuu noogu jawaabay idin ma ballaminayo anigu gudoomiye idin ma ihi anigu siyaasi idin ma ihi aniga salaadiin iima tihidin intaasuu noogu jawaabay laakiin Suldaan ma jirtaa tiraba dhowr jeer inuu idiga codsaday aan ku dhameeyo wax annaga uu naga codsaday oo shakhsiyan kula hadli maayo anigu naftayda aan ka hadlaya 8 yada suldaan nin uu wax ka codsaday oo wax ku diiday buu ogi anigu ma jira kulan idiga codsaday iimaado ka cudur daarateen adagu waxaan ku dhahay fadhiyo hadalka waan ku wada dhameeyo hadalkan sidii soo dhameeyo intaas markay dhacday muddo yiri aniga maalin heblaayo anad casuumayay kale hadalka lama lexleexiyo waxa ku horta ballantayada ka horeysay taayada markaad fuliso ila salaadiintaadi baan nahay ayaa dabeetana ayna takalana ka ballabi doonaa ninkaas uu na diiday taasoo Cabdicasiis uu na diiday wuxuu aniga salaadiin ima tiidin anigu siyaasi idin ma yihi siyaasi kala leedihiin waanu garan siyaasi kale nagu sheegay online anigu siyaasi aan wadana anigu jiro intaas markay dhacday qoladii kalena iyagana xiriir baan la sameyn nimankii uu yiri anigu shaqo kuma lihi inuu marka horena la hadalay iyagana xiriir dambaan la sameyn arrinkaasi wuxuu ku soo ururay nimankii inaanu fara maran iska taagno labada dhinacba way
waa isla dhinactay nimankan kolla waa laba